munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay taageerayaal tiro badan oo ku soo biiray xisbiga wadani ayaa lagu qabtay magaalada Ifle galbeedka degmada Ceerigaabo. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasi Xasan Cali Bulaale oo kamid ah saraakiisha golaha dhexe xisbiga wadani, waayeel waxgarad guurti iyo taageerayaal tiro badan. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay xubno tiro badan oo ku hadlayay afka taageerayaasha soo diga rogtay, kuwaas oo cadeeyay inay si weyn u taageersan yihiin xisbiga wadani iyo siyaasi Xasan Cali Bulaale oo ka soo jeeda deegaanka. waxaanu ku soo biirnay xisbiga wadani waxaanu soo dhaweynaynaa waftida ballaaran ee nooga timi xisbiga wadani golihiisa dhexe xasan maxamed bulaale deegaanka magaalada Ifle. waxaanu diyaar u nahay xisbiga wadani. waxaanu leenahay xasan cali bulaalow reerku waa ku diyaar ku soo dhawow, reerkuna waa wadani baynu isku ognahay. wadani ha noolaato, miyaa cudur ha noolaado. annagu haddaan nahay beesha uu xasan cali bulaale nagala fadhiyo waxaanu diyaar u nahay inaannu siino codka gudoomiyaha cabdiraxmaan ciro. waxaan leeyahay dadku waa wadani oo dalku waa wadani. wadaanka xasan cali bulaale ka tirsan xisbiga wadanina waanu taageersanay, waa garab taaganay. cod iyo ciidanba waanu diyaar baan leenahay. waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa waana salaan hawada u marinaynaa madaxweynaha mustaqbalka cabdiraxmaan cabdulaahi ciro. waxaanu nahay xisbigiisaanu nahay cudud iyo wixii alla wixii aanu iyo codba waxaanu siinaynaa wadani baanu siinaynaa. xisbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa. reerkuna waa hal dabala, aad baanu u taageeraynaa. taageerayaashiisa waa aragtaan, aad baanu xafiiska iyo xubinta guddiga golaha dhexe baanu u soo dhaweynaynaa. xasan soo dhawow, dalkuna waa wadani, xisbigu waa xagee saas xasan dadkaaga iyo dalkiiba kuga helan yahay. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay Xasan Cali Bulaale oo kamid ah saraakiisha golaha dhexe xisbiga wadani ee suura geliyay inay taageerayaashan ku soo biiraan xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaan marka hore idinka mahad celinayaa soo dhaweynta ballaaran ee lagu sameeyay degmadaydii oo magaaladaydii. waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin. midda labaad, war dadkii waa ka rabitaankooda muujinayaan, cid u xidhanina ma jirto, meeshii ay dan moodaan bay marayaan. aan idin sheegayaa dadyogan reer Iflaamaad gaar ahaan gobolada bariga dhibaatada idinka haysata marka qof xanuunsado waxa loo qaadaa 700 kiiloomitir oo Hargeysa la geeyaa. war xisbigan aan la soconnaa, wax kale kuma aanan raacin. wuxuu gobol walba sidiisa wax ugu qabanaya, gobol u baahanaya ma jiro. hadday waxbarasho noqoto inanka Ifle ku dhashay subaxii intuu Ifle ka quraacdo Ceerigaabo jaamacadda ka soo dhiganaya, subaxiina soo noqonaya. inaan dambo Hargeysa waxbarasho u tagaya ma jiro, qof xanuunsanayo la qaadayo oo dambe ma jiro. yaan nin meel iska fadhiyo 7 sanadood aydan aragoo maanta idin yimaada idin oran reer hebel baynu halkaas aynu nahay. war meen waxa isku ognahay geel baanu kala dhici jiray iyo waanu sayn jiray. war wixii waa soo dhamaadeen. wax wada qabsi iyo horumar baa la doonaya. xisbiga oo helan inuu gobolada bariga horumariyo oo Soomaaliland si siman wax ugu qaybiya waa wadani. Yunus Ahmed Salah, Universal TV, Ceerigaabo.